An exciting trip waxa weeye safar xiiso leh. I have just arrived. I have just received. Anigu hadda ayaan guddoomay. A letter warqad baan guddoomay from ka timaaday my brother Tim, walaalkay Tim. He walaalkay is in Australia. Waxa uu joogaa dalka Australia. He has been there. Halka Australia ah walaalkay wuxuu joogay for 6 months, muddo gaadhaysa 6 bilood. Tim ninka la yidhaahdo is an engineer. Waa nin engineer ah. He is working for, wuxuuna u shaqaynayaa a big firm. Shirkad weyn buu u shaqaynayaa. And he has already, horay ayuuna walaalkay visited uu u booqday a great number of different places, meelo kala duwan oo fara badan oo muhiim ah ee ku yaala Australia, qaaradda Australia. He has just bought, hadda ayuu iibsaday an Australian car, gaari Australiana ayuu hadda iibsaday. And has gone to, waxaana uu aaday Alice Springs, magaalo la yidhaahdo Alice Springs buu aaday ee ah a small town, magaalo yar ee ku taala the center, bartamaha of Australia, waddanka Australia. He will soon, waxa uu durbe ama dhowaan visit uu booqan doonaa Darwin, magaalada Darwin buu booqan doonaa. From there, marka uu Darwin ka soo dhaqaaqo ama Darwin kadibna walaalkay he will fly to, waxa uu u duuli doonaa Perth, magaalada la yidhaahdo Perth ee iyadana ku taala geeska Australia. My brother walaalkay has never been abroad. Weligiisu Australia dabad ma uusan aadin before hadda ka hor. So sidaa awgeed he is finding this trip very exciting. Safarka kan aad ayuu u xiisaynayaa. Hoosta nooga xariiqade. Erayada tenniska dabaad ka dhigaa iyo kala saar. I have just received. Hadda ayaan guddoomay a letter from warqad ka timaada my brother walaalkay. Received iyo have ayaa perfect ah. Sidaas darteed received waxay ka timaada receive weeye. Hoosta ka xariiqo. Receive guddoomid weeye. Past participle waa received. He is in Australia. waa simple present tense jumladaas. isagu Australia hadda joogaa weeye. Isto waa marka ahaanshaha simple presentiga. He has been there for 6 months. Been iyo has ayaa perfect ka dhigaya. Has been waxa uu joogay ama uu ahaa. Perfect way. Okay, been waxay ka timaaday was iyo war iyo is xataa. Tim is an engineer. waa simple present tense. ahaansho waa isto waa. He's working for a big firm. waa present continuous tense. waa subjectiga oo he ah is ing waad aragtaa. And has already visited a great number of different places. And has already visited, has iyo visited ayaa perfect ka dhigaya. Visit bay ka timaaday. He has just bought an Australian car. hadda ayuu iibsaday baabuur Australiana. Has iyo bought. Bought iibsashada ah buy bay ka timaaday. Irregular verb. And has gone to Alice Springs. wuxuuna aaday Alice Springs. Has iyo gone way. Gone waxay ka timaaday go. Hoosta ka xariiqo. A small town in the center of Australia. isla socotaa jumlada hakada ku jiray. He will soon visit Darwin. waa simple future tense jumladaasi. Will iyo visit oo infinitive ah ayaa ka dhigaya. From there he will fly to Perth. waa simple future tense. Will iyo infinitive ka fly duulista ah. My brother has never been abroad. Has iyo been. So he's finding this trip very exciting. waxa weeye present continuous tense. He is finding. Is iyo finding oo ing wadata. waxaan u malaynayaa casharka in la fahmay. waa sii soconaynaa marka. taariikhdeenu ma istaago insha Allah. Comprehension prizes
prices fahan gaaban and composition iyo curis weeye comprehension fahan prices gaaban and composition iyo curis fahan gaaban iyo curis weeye marka answer ka jawaab baa lagu yidhi this question su'aalahan ka jawaab in not more than inaan ka badnayn 50 words conton eray waxaan ka badnayn kaga jawaab answer ka jawaab this question su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 50 words conton eray businesska hadday suu u shaqeeyo waa taqaanaa bay ila tahay 4 waa la khasaari karaa laakiin wixii ka badan lama ogola 45 46 47 48 49 ilaa 50 ama 41 42 45 aan dhihi lahaa 46 47 48 49 50 xagga dhig kow what has muxuu the writer qoruhu just hadda received from uu ka hantay ama uu ka guddoomay his brother walaalkiis team hadda muxuu ka helay muxuu ka guddoomay what has the writer muxuu ninka qoraaga ahi just received uu ka guddoomay from his brother team walaalkiis team su-aashan waxay ku timaaday perfect iska ilaali already tenniska 7 waxaana caddayn u ah has baa meesha ka muuqanaysa iyo past participle verb oo ah received noqotay marka jawaabtu waxaan leenahay the writer qoruhu has just received hadda ayuu ka guddoomay a letter warqad from ka timaaday his brother team walaalkiisa team the writer qoruhu has just received hadda dhow ayuu ka guddoomay a letter warqad ayuu guddoomay from ka timi his brother team walaalkiisa team labo teamku an engineer ma engineer baa or mise isagu waxaa weeye mise isaguma waxaa weeye a doctor mise dhakhtar isaguma engineer baa mise isaguma waxaa weeye dhakhtar is he an engineer is team an engineer team ma engineer baa or is he a doctor mise waa dhakhtar team is an engineer team waa engineer weeye jawaabta team is an engineer team waa engineer 3 how long muddo intee la eg has he been uu isagu joogay in australia gudaha qaaradda ama dalka australia imisuu joogay team how long imise ayaa has he been uu isagu joogay in australia waddanka australia imisuu joogay jawaabtu waxaa weeye he has been there isagu waxa uu joogay halkaasi for 6 months muddo 6 bilood uu joogay he has been there halkaa waxa uu joogay for 6 months muddo 6 bilooda 4 has he isagu already horay miyuu visited uu u booqday many places meelo fara badan miyuu hore u booqday or not mise hore uma uusan booqanin has he already isagu visited ma wuxuu booqday many places meelo fara badan or not mise ma uusan booqanin he has already visited isagu horay waxa uu u booqday a great many different places meelo fara badan oo kala duwan ayuu hore u booqday haddaa rabtid in australia ku dar ee gudaha australia ah waxaa leedahay he has already isagu horay ayuu visited uu u booqday a great many places meelo fara badan oo ama waxaad dhihi kartaa a great number of different places meelo kala duwan oo aad u muhiim ah ayuu hore u booqday in australia ee ku taalla qaaradda australia where is he now number 5 xaggee buu hadda joogaa where is he now hadda isagu halkee buu joogaa waxaan dhihi karnaa he is now in Darwin he is now isaga hadda wuxuu joogaa Alice Springs ayuu joogaa waa dhihi kartaa Alice Springs ayuu joogaa aduu jawaab baa laga rabaa passage ka imaanaysa has team miyuu ninka la yidhaahdo team been ever